بسم الله الرحمن الرحيم أصحابتا وين سلامية هل كان نجلس سعوتان وعطي ميديا فضلا أضل نوصل تاي نوصل بير أضو ماتسان سينا جارسي أصحابتا هذا كلام شير جري وحرنا بريك نيوز كيمان يا برعال إن دقيقة إسدول تاجنا نمانكيل أورنجري أهل السنة لب حي وأن نسعان ولب حي ساعة ومدة الصومالية طبعا مجا عاص وضله أما ومدة المسلمين تا أيا in badan laga bariyay oo halka oo loo soo diray maaragtaa hadwan la kuuriyay erga fara badan haday qabiilka ay ka dhasheen cayrka ay tahay la fiyodo kala duwan hadii ugaaskoodii yahay guud dhamaanba way ku gacan ayagoo ku gacan seeray wixii maaragtaa talo iyo tusaaleyn oo dadkooda ay siiyeen ayay markii dambe waxay go'aansadeen in dhalintii curdunka ahayd ay dabka geliyaan iyagoo hadafkoodu uu yahay ragga hogaaminaya inay maaragtaa mansab ku gaaraan ama xillibaano ay ku helaan ama xataa ay ku helaan dabcan maaragtaa xoogaa saluuda ayagoo weliba cadowgii ummadda Soomaaliyeed ka soo qaatay markii horeba xoogaa yaro dhaqaale yar ay maaragtaa ummadda Soomaaliyeed ama dawladnimada curdunka ah ee maaragtaa ee hadda ka soo iftiimaysa magaalada Dhuusamareeb rabay inay ku dumiyaan dagaalada sababtay u dheeraadeen wax kala ma ahayn ayadoo loo turayay dadka deegaanka inkastoo ay ka barakaceen haddana hantidii maguurtada ahayd ee magaalada Gurceel ayaa in badan waxaa diiradda la saarayay in aan si sahlan loo burburin ayadoo maaragtaa xeelad lagu darayo dagaalka dabcan dagaalku waa xeelad waa sababta u dheeraaday dagaalka nimanka odayaasha ah in badan baa maaragtaa kor iyo hoos wax loogu sheegay habeen hore waa tuu dagaalku soo bilowday saq dhexe maaragtaa habeen hore dhan xogaa uu dagaalku socday shalay oo dhan uu socday dabcan shalay saaka ciidamada xalaynimadiiba ciidamadu dib bay uga gurteen dabcan magaalo haddaad soo gashado ciidana inaad isla habeenkii kuma hoyan kartid dabcan waa inaad gadaal uga degtaa waa uun dib u gurasho dagaal waxa lagu micnayn karo nimanka marka adwa lagu rooyahay iyagoo xalay ogaa wixii shalay lagu dhigay iyo habeen hore hayay haddana weli ku sii adkaysteen weliba Sheekh Shaakir ku sii adkaysanayay ninka Sheekh Shaakir la baxay in maaragtaa ummadaas ama dhalintaas uu halka ku holciyo oo halka dabka ku shubo dabcan waa la ogyahay niman yaro jabhada iyo maamul ay dawlad back up oo ay u tahay inaysan mar walbaba aysan isku maaragtaa awood isku dhiganta aysan lahayn haddana wuxuu asagu mar walba ku adkaysanayay inta ay dhalintaas ay noosha ay socoto ayuu rabay inuu baabiyo midna ka dhaqaaqin dabcan tiibaana dhacday wax yar oo farxada mooyaane oo sunta ay qaaday inta kala dhimasho iyo dhaawac ayaa maaragtay dhalintii ku baxday waxa inta dheer ayagoo dhaawaca oo meel walba dhaawacyadooda la kala geeyay dabcan kuwa gaalkacyo looga daba tagay inkastoo ay habboon tahay dadka waa dadkeennii waa maaragtaa waa dhalinteena waa mustaqbalkii waa dalkan dadkii daafici lahaa oo awoodda u noqon lahaa in maaragta la dabiibo oo la siiyo daryeel caafimaad ee u qalmaan dabcan ayagu ma aha waxa dambiilayaasha la soo qabto ee maxkamad la geeyo waxay mudan yihiin la marsiiyo aan la oran aan lagu marsiyo maaragtaa hal iska sii daayo waa culimada dabcan hore waxay ahayd markii horeba maaragtaa sanadii bar ka hor ayay ahayd nimanka xir inji maalintii lagu qabtay in maxkamadii la geeyo ama saldhigga lagu tuuro ay dadkuna ka nastaan ayaguna nastaan mar labaad ayay soo laabteen ayagoo markii horena dhalin Soomaaliyeed aysan shaqo ku lahayn dabka ku shubay ayagoo mabaadii qaldan u adeegsanay ayaa haddana mar labaad Gurceel bildan leesiga dabalaabanaya si dhiigaas daadanaya loo badbaadin lahaa iyaguna dhiigaas kaliya waxay ka maartay ku rabeen ama ay ku raadinayeen mansab oo kaliya ama la heli karo haddii si qumaatay loo raadiyo ama la weyn karo dabcan mansabkan waa wax maanta lagu dhiibo barina aad ka tagayso iyaguna maaragtaa hawshaasu maaragtaa waa hawl ay ugu adeegayeen maaragtaa ajaanib maaragtaa dalkan maaragtaa dawladnimada curdunka ay hadda ka soo iftiimaysa raba inay baabi'iyaan magaalada Gurceel maanta waa xor nidaam iyo maamulkii baa dib ugu soo laabtay aad baan uga xunnahay maaragtaa dhalinta la baabiyay hase ahaatee waa muhiim
dalkaanu inuu dowlad yeesho inuu maamul yeesho ma soconayso wadaad baa meel haysta ma soconayso jabhad baa meel haysta dalku inuu dowlad noqdo iyo inuusan dowlad noqon wax u dhaxeeyahay may jiraan labada qodob ayaa taagan dalku waa inuu dowlad yeeshaa hadduusan dowlad ahayna dadka maaragta dalka jabhadaha iyo maaragta kuwa lacaynka ah inay wadanka laga saaro dabcan dadkii Soomaaliyeed ee birmageedada ahaa ay ku dhaqnaa magaalada Gurceel ee lahaa caruurta ee lahaa waayeelka ee lahaa haweenka maalintiina bacadkaas ayay jiifaan oo qorraxda ayaa ku kor dhamaata habeenkiina maaragta dhadadaas ayaa ku kor dhacda oo meel ay galaan iyo waxay cunaan midna ma hayaan dadku waxay ahaayeen dad qarab ku nool dabcan sidii shimbirtii subaxii soo baxa wixii ay helaan dib ula laaban jiray asa ahaatee meel laga shaqaysto ma ilaha magaalada ka shaqaysanayeen nin baa dagaal ka sameeyay si uu helo in yar oo maaragta mansaba uu dalkana ku dumiyay waliba adii la siixata hatta hadii la weydiiyo ninka mansab ma warabinba wuxuu rabay kaliya dowladnimada curdunka inuu baabiyo waa qorshihiisa kaliya u socdo intaas bay magaalada Gurceel ilaahay mahadi بعد الشدة وتعب ماركتا وما أنت وحصلونتا عاوة إن الهضليو وإن بتقليو الحمد لله إلهي ما حكر رجينا يا أيد مجالين ككلا الصوماليات إني حسلوني إن بداس إنه إلهي نوزياديو إن شاء الله وحيالها كلا شقاقين كلا دعينا إلهي نجبت باديو ودول النمذ إني حوجنيت وإلهي نوسعليو وحا مركا حالكا مركا تاجنتها وحا مهمة إن dadkii baxay in maaragta loo geeyo gargaar dawladeed gacan dawladeed ay gaarto dadka la siiyo baawur loo geeyo lagu soo celiyo magaalooyinkoodii dadka noloshiisa dib ugu bilowdaan in la siiyo waxyaalaha ay u baahan yihiin sida maaragta cunooyin iyo maaragta in la siiyo gaar ahaan caruurtii iyo hooyooyinka dhallaankaba in cunno nafaqo la gaaro la soo kiciyo si ay maaragta noloshoodii markii hore meeshii u taagneed ama meel ka sarreysa u hiisadaan dib loogu soo celiyo maadaama intii yareed ay haysteen laga kala tuuray dabcan magaalada Gurceel waa magaalo ganacsi waa magaalo dad badan ku nool yihiin Soomaaliyeed ay ka ganacsadaan waxa loo baahan yahay magaalada ganacsigeedii in dib loo soo celiyo goobaha waxbarashada la furo nabadgelyada laga shaqeeyo sidaana maaragta dadka deegaanka waxa hogaaminaya dabcan markii horeba dagaalka waa dadka deegaanka ay hadeertaan hadwaa la ku ruun yahay noloshii dib loo amba qaado insha Allah waxa qodobka ugu muhiimsan ah maadaama dagaal dhiig fara badan oo halka ku daatay waliba dadkan maaragta khayraadkii kaliya uu haysto dhalinyarada ay halka ku baabeen ee halka lagu gumaaday raggii maaragta arinta dhaliyay oo ugu horeeyo ninka liidaa Shaakir waa in maaragta iyo raggii lacaynka ah ee la hogaaminayay dagaalka waa in la soo qabtaa maaragta aan looga harin sidii xir injil looga harayo dhuusamareeb sanadii barkoor maanta waa in la soo qabtaa maaragta ay dhadhamiyaan cadaaladda ay wajahaan taa weeyaan mid muhiimsan maanta dabcan hadii laga haro berina waxa dhacaysa inay dib isku soo abaabulaan cadowga shishay waa taagan yahay lacag uu la taagan yahay hub iyo ciidan buu la taagan yahay dabcan uu keen way iman doonaan meesha mar labaad ay soo rogaacin doonaan ayagoo magaalo kamida maaragta magaalooyinka Galmudug haddana ka ridi doona xabad maaragta haddaan laga gaarin oo maaragta hadoo la ku roon yahay hawsha aan la qaban waa muhiim nimanka in la daba gaaro dhalintana laga soo wado ayagana maxkamad laga dhalintana maaragta kuwa wixii dhaawacmana loo booga dhayo la dhaawac tiro oo la daaweeyo oo daawooyin iyo xanaano fiican ay dawladda ay siiso ama Galmudug ama federaalka ee dhexe hadii inta kalena kuwa ragga kala oo madaxda u ahaana inay cadaaladda wajahaan oo Shaakir u weyn yahay ee hadda ku dhuumaalaysanaya maaragta baadiyaha Gurceel waa inaan looga harin sida waxaan rajeynayaa ummadda Soomaaliyeed inay dowladnimada ay u qumaan waxa kaliya on asaageen aan uga daba tagi karno waa dowladnimo waxba macnaa sameeymayso anigu reer hebel dowlad waa lagu noqon waayay cidda doonto ahaw waan isku baahanahay isma horta haysaleen wa salaamu calaykum wa rahmatullahi